السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامة دمان ميل walbood adduunka joogtaan magacaygu waa Maryam kusoo dhawaada janankayga Royal Cooking maanta Maryam waxay idin haysaa qoraac yar oo masha Allah tabaarakallah oo fitamiin ah oo korkaaga wax walba gelinaysa oo inta badan ka qaadanaynin oo masha Allah tabaarakallah waakana waxaan soo dhigdhiganaynaa alaabteeni meeshan waxa igu jira liin iyo liin qubkeeda sare iyo biyaheedi inta waxa igu jira sabiib inta waxa igu jira loos inta waxa igu jira qaado subag la'aada inta waxa igu jira bakeeri sokor inta waxa igu jira laba xabo oo kuna meeshaas waxaan ku haystaa sisin inta waxaan ku haystaa caano caadi ah inta waxaan ku haystaa bakan iyo faniile iyo qaadayro cusba ah inta waxaan ku haystaa boorash idaan aqoonin mala boorashka saas u yaala waa boorashka mishaarida laga karsado marka insha Allah hadda waxaan bilaabaynaa sidaan iskugu dardarsanahaynay waxyaabaha meesha noo yeelad u jeedin marka insha Allah haddaan isku dardarsanahaynaa maxay ahayd waa quraac yar oo fudud oo masha Allah tabaarakallah oo gurigaaga ku taalo oo meel ka jirjirihayna alaabtan waxa laga yaabaa inay gurigaaga ku taalo marka insha Allah maxay ahayd isha hadii aad sokorta iyo waxaas aad ka reebto iyo subagan white ka ridaa labada dhinacba waa loo isticmaali karaa dhankaad rabtad u isticmaali kartaa haddaad rabto white rido baa u isticmaali kartaa waa kana liinta maxay ahayd isha dhanag aan caadi ahayn oo caraf ay u yeelaysaa masha Allah tabaarakallah subagana caraf oo u yeelayaa macaan iyo masha Allah tabaarakallah kaale iska arag waa quraac yar oo healthy oo masha Allah tabaarakallah liinta waxaan ku dhigi karaa dhanag yar oo macaan dhanaanaho kugu soconaya u yeelaysaa marka waa kana waxaan ku darsaday faniila adiga daarabto waxa sameynaysaa qorfa ku daheela ku darsahaysaa hadaa rabto marka insha Allah caanaha sansas ugu soo daraya waxaan oo dhan saas aan isu soo wada dhaxgelinayaa marka insha Allah adigana maxay ahayd soo baroobay waa kana yogurka masha Allah borotiin ay leedahay iyo maxaan ku raahdaa ishag waxyaabo badan ka buuxa waa fitamiin asaagiiso la isu keena adaaba arki doona Soomaalidu waxay ku maamaadaa wax ilaahay ilaala ka dhan sisintiyan hadda ku darasa ujeedaba sisinta waa aragteen macdan wax walba laga helaa kaale iska arag looska asagana masha Allah tabaarakallah maba la gaaraba waxaan ku dhigi karaa isha sabiibkana indhaha maba loo gaaraba iyo kaale iska arag cuntada xataa waa furiyaa mashaaridaadi subax aad karsaysa ka warne haddaad inta sas soo habaysato ayadoo ku diyaarsan firinjeerka kuugu jirto hal xabba daarta laba xabba waxa cuni karto soo qaadato bakeerigaaga shaah aad ku cabto saarta oo isticmaasho hadii kale idoo white ka ridaysa aad subsato hadii kale idoo masha Allah oo aad subax quraac masha Allah aad ka dhigaysa aad ku subsato yaaba ka fiicanba kaal iska arag waa wax ayna anficin mala ilmaha la sii karaa waxa la sii karaa qof weyn aabba la sii karaa hooyo la sii karaa quraacan caadi ahayn waa inaba aan caadi ahayn dadka aan mashaarida jeclayn haday subsadaan waxaan ku dhigi karaa faroodkooda waxooda kulli saasay ku qabaanba marka waa kana hasaas quruxda badan ayaan ka soo dhigay waxaan fiirinayaa inta maxay ahayd isha qoyaankiisa oo la egyahay hadii uu ugu yar yahay wax yar had waa iga jilcan yahay laba bakeeri barayba ahayd waaba iskaga wada daraba waa kana sida aan rabo noqdo quruxdan masha Allah tabaarakallah kaale iska arag hadda waxaan sameynayaa qaadadaasaan maxay ahayd ishagan ku walaaqa u jeedin markaan ku walaaqo waa qaadada aan kula shubi lahay meelihii loogu talagalay marka waa kanaha waxaan soo dhaweysanayaa weelkii saliid ayaan soo marmarsanayaa waxaan ku dhigi karaa sida doolshiya u sameynaa si qurux badan oo uga soo dhacaya adaaba arki doonta quraacdan lagama sheekay karo qofta cunta kaliya ka sheekay karta waxaan ku dhigi karaa adiga dhan fudayd aad dareemaysaa waxaan ku dhigi karaa culeyska iyo waxaan ku dhigi karaa wayba ka ba'ayaan gurigaaga markaa ka shaqeysa intaad quraac ka dhigata intaad meel ku shubada subaxdii koobkaaga shaah aad ku cabtidaan ku dhigi karaa waa fududaanay waxaaba naqaheeba sidii cunug yaro hadda dhashay camal u fududaana markaasaad guriga haaqinku wax walba qabsanaysaa laakiin markaad subaxi wax culus cunto waxaan ku dhihi karaa maba kici kartid basariirta inaad iskaga naqataa rabtaa marka fitamiinaadkan waa u jeedinay maxay ahayd ishak soo baroobeeya arka maxay ahayd haddaad soo baroobaysiin idinkaaba ii soo ducoy doontiinba oo maxaan ku rahdaa isticmaashiin waa fitamiin maxay ahayd kaale iska araga waa quraac healthy oo aadna u dhib yaro foornada waxaan u geynayaa 250
waatana quraacdeeni hadday furnada noogaga soo baxday ma raba inaan teed badan idinka qaato wax yaroo strawberry ayaan korka ka marmarsanayaa wax yaroo sheemana korka ayaan uga soo daadaadsanayaa adiga wax alaal waxaa rabta ayaad u isticmaali kartaa waxaan kaleetoodan isticmaali doonaa xooga yaroo furuud ah adiga waxaan ku dhihi karaa furuud alaal furuudkaad haysata ayaad isticmaali doontaa haddii kale sideedaaba la iskaga cuni karaaba waa quraac healthy oo maasha allah tabaaraka allah oon teed badan kaa cunayno waxaan ku dhihi karaa caafimaad oo kaal iska argaho qof walba ay isticmaali karto aad iyo aad u macaan badan aad iyo aadna u caraf badan qof allaal qofka isticmaasha ayaa ka sheekay karta qof aan isticmaalin maba ka sheekay kartaba aad iyo aadna waa u qurux badan tahay soo ma qurux badna ilaahay waxaan ka baryayaa intii aan haysan inuu ilaahay siiyo inta haysatana ilaahay u siiyaadsho asxaabay maanta fideogan intaanuu ku egyahay waxaan filayaa inaad fideogayga ka heli doonto haddii aad fideogayga ka hesho like saar subscribe jananka gambaleelka furo si aad u ogaato wax badan waxaan idinkaga tagayaa kheyr iyo barako assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu